adigoo ka maqadunidani mugeda mawla kugu qoray towrad meerisyada injile amusiyo ciisa dadkoodii. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان بصحاب تقاليجا كحرنا إن بيوتي سور دواده هذا نقول صوبته هاي فضلا سبسكرايب نصار جنبليل كنا فرامة تشيلس كسادو تقانيد سادو لسعته فيديو كستن سوق إن شاء الله ما أنت محندين ودنا ولا له هيك قاليجا نشعلنا هاي مدام يدي سور دوده هاي وحنكون شرنا وحيابها شركة لقول نظيف يوم مركمان تحندين ودنا جعمها سيدا دو قرحين لهايد أدمد مدوجة يشعدت كوجبا بين لهايد هديت كعبني سد إيوه haddaad rabtid gacmahaagu inay waxoogaa yara buurbuurnaadaan waxaan idiin wadnaa waxyaabood oo labaduba gacmaha muhiim u yihiin mid madowgay ka biinaysaa midina waxay ku sameynaysaa gacmahaaga inay soo yara buurtaan oo waxoogaa qurux noqdaan haddii aad ku dadaashid laakiin maalin kaliya waxba kaagama bedeleen laba maalmoodna waxba kaagama bedele waa inaad muddo wadaa halkan waxaan ku haysanaa waa xulbad iyo timir xulbadiyo timirtu waxay ka caawinayaan gacmahaagu inay soo buurbuurnaadaan oo ay ka ba'o jacdadku markaa waan isku soo darnay iyada marka dambaan marinaynaa laakiin waxaan horreysiinaynaa waxyaabaha gacmaha madmadowga iyo uskaga ka qaadaya waa dawada cadayga weliba dawadan cadaygan ku darayo anigu tan baan imika hayay oo guriga taalay laakiin waxaa sii wanaagsan koolgeyda iyo huruud iyo liindhanaan ayaan isku daray in yaro biyo ana waan ku daray intaas isku qasayaa si fiican ayaad gacmahaaga ugu masaajeynaysaa saasaad ugu masaajeynaysaa laakiin maalin kaliya maaha waa inaad asbuucii 2 jeer ilaa 3 jeer samaysaa isbedel fiican baad insha Allah ka arki doontaa intaa markaad si fiican gacmahaaga ugu masaajeyso waxay ka caawin doontaa inay ka goyso madmadowga inay ka goyso gacmahaaga waxa la wixii saaran ama wasakh ahaato ama madow kulli jirkeenu toddobaadkiiba mar in dhaadhiskinka laga qaado wuu rabaa marka waka si fiican liindhanaanta ayaad ugu xoqi doontaa waxaad moodaa anigu inay yara degdegsanaan xoog u xoqaayo laakiin si yaro tartiib ayar ayaad ku sameyn doontaa si yaro deganaan aan jirkaaga aanad ugu geysan wax dhaamiija marka waka inta marka dhamayno iska soo maydho waxaan marinaynaa xulbadii iyo timirtii qofkii raba xitaa caano wuu ku darsan karaa caanaha budada ah laakiin intaasaan inta sameynaynaa wakaas marka gacantii aan soo maydhnay aan soo qalajinay aan cream yar soo marinay saasay soo baxday laakiin inkastoo weli sidii aan rabay may gaadhin aniga qodaydu shaqada waan ku jiraa inaan gacmaha qurxiyo aan ka shaqeeyo laakiin hal midab bay ka dhigaysaa huruudan iyo dawadan cadayga iyo liindhanaantu markaad gacmahaaga ula dadaasho midab kaliya isku eg bay noqonayaan xulbada iyo maxay hayday timirtuna waxay ka caawinaysaa inay gacmahaaga dhalaal yar oo goldana ka dhigto iyo inay soo yara naaxiso oo haddii farahaaga shaqada iyo waxa ay ku daaleen ay qurux ka dhigto ama tahay dadka skinkooga iska jacdado marka waa iyagu anti-aging quruxba midna timirtuna dhalaal bay siinaysaa xulbaduna waa anti-aging waxay ka baabiinaysaa in gacmahaagu jacdadaan marka meelaha yara urursan ee had iyo jeer skinka dadku ka jacdado ayay ka ilaalinaysaa xulbadu haddaad ku dadaasho waanad ku mahadsantihiin daawashada fiidiyogan iyo saad u dhamaysateen intii daawatay insha Allah waxaan rajaynayaa in aad ka faa'iidi doontaan oo faa'iidada idinku soo sheegi doontaan waxyaabo kale badan oo jirka faa'iido u leh waa soo wadnaa insha Allah